Santarka Shaxda ee degmada Danood ee gobolka Doolo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar. Soo dhaweyntan ayaa waxa ka qayb qaatay isimada cuqaasha culimada waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha ayaa muddooyinka u dambeeyay gobolada Jarar iyo Doolo qaybo kamid ah safar ku mareeyay waxaana uu maanta soo gaaray Santarka Shaxda ee degmada Danood ee gobolka Doolo. waxaana ugu horeyntii halkan ku soo dhaweeyay kana hadlay Garaad Cabdisaaq Soofa Durraan. isugu keenay hoolkan quruxda badan inagoo nabada ilaahay baan u mahad celinaynaa in badan mahadda labaadna waxaan u celinaynaa waftiga noo yimid oo soo booqday booqashada noogu yimid iyo maaragtay inay dadkoodii ay xukumeen mas-uulka ka ahaayeen soo arkaan ilaa iyo meesha ugu dambaysa. waxaan leenahay madaxweyne adiga waftigaaga waa mahadsantihiin waa idin soo dhaweynaynaa si kal iyo laaba iyo sida qof bilow aadan loo soo dhaweey sida ugu qiimaha badan ayaan idin soo dhaweynaynaa. qalbi maaragtay idin raba ayaan idinku soo dhaweynaynaa. kalgacayl baan idinku soo dhaweynaynaa. dawladnimo jacayl iyo inaanu dawladdeeda rabno oo u heelanahay baan idinku soo dhaweynaynaa. inaanu idinla shaqaynayno oo garabkiina taagannahay oo shacabkiina nahay ayaan idinku soo dhaweynaynaa. waxaan ku leenahay madaxweyne ku soo dhawow deegaankan Buuhoodle iyo deegaamada ku xeeran ee tirada badan adigoo san adigoo sharfan adigoo karaamaysan adigoo maaragtay aad iyo aad lagu rabo ayaan leenahay. intaa haddii aan ka gudbo waxaan filayaa waa wafdigii ugu horreeyey dowladda deegaanka Soomaalida oo u soo qasta deegaankan aan ku noolahay ilaa iyo inta maaragtay magaaladan iyo magaalooyinka ku xeeran wafdiga u soo qasta oo u soo socda wax ka badan 700 kilomitir weeye. runtii waana deeqday waxaana filaynaa oo filashada iyadoo ay tahay in aad gudateen xil badan oo idin saarnaa inaad arki doontaan wax badan oo aydan maaragtay horay u arag inaad ay noqon doonto wax badan oo la idiin sheegayey oo ay ka mid tahay Buuhoodle waa meel sidan iyo sidana. waxaan madaxweyne ku leenahay wixii la sheegayey waxba kama jiraan. waad u jeedaa dadka halkaa joogay dadka bannaanka tuban meel kastoo aad martana sidan ayaad kala kulmi doontaa. wax dhibaato ana ma jiraan. qof aan idin rabinna ma jiraan. qof dawladdiisa aan rabinna ma jiro. waxaan ku leenahay waddankaagii oo nabada ku soo dhawow. waxaan leenahay annagana filashada iyada runtii meeshan waa la og yahay deegaankan waxaan odhan karaa waa deegaan la dayriyey ayuu ahaa maadaam intaas lanoo soo socday hoggaamintii ugu sarraysay ay marayso. aan ognahay in kulamo badan hadda ka hor in badan laysku dayay oo ay baaqdeen oo hawlo iyo maaragtay culaysyo jiray ay baajiyeen. filashada iyaduna waxaad ogaanaysaa madaxweyne inay aad iyo aad u sarrayso oo aan is leenahay waxaan ognahay in wax badan inaga baaqdeen. runtii wixii baaqday odhan mayna mar wada dhig laakiin ugu yaraan maanta inaannu badh helayno ayaannu runtii filashadeeduna sidaas weeye. dadka deegaankana waxaan leeyahay waa idin hor fadhiyaa madaxweynihii ku caanbaxay inuu bedelo jawiga dowlad deegaanka, madaxweynihii nabadda, madaxweynihii akhlaaqda dhisayey, madaxweynihii sharafta badnaa, madaxweynihii dadka dulman u hiilinayey, madaxweynihii jeelashii dadka lagu ciqaabi jiray xidhay maanta waa idinla joogaa. biyana gacmahaagaa lagaga dhargaabaa la yidhi. biyo gacmahaagaa lagaga dhargaa. waad u sheeganaysaan wixii aad u baahan tihiin idinkoo wakhtiga ka faa'iidaynaya oo qofkii halkan isu soo taagaa hadalka uu koobayo. waa idin hor fadhiyaa yay maanta idin dhaafin. aad baa u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. horumar aad gaadhsiisaan gobol hadduu yahay, degmo hadduu yahay, biyo hadduu yahay, caafimaad hadduu yahay, jidad hadduu yahay iyo maamul dejin hadday tahayba raalli baan u nahay. madaxweyne waxaanu codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba jidadka waaweyn ee horumarka ah ee dowlad deegaankeennan dhex maraya ee soo gaara jidka soo gaara gobolka Doolo Wardheer iyo jidka soo gaaraya Gaashaamo inay soo gaaraan deegaamada yadan ayaan codsanaynaa si bulshadayadu ama bulshadeenu ay uga faa'iidaysato horumarka iyo horusocodka ka socda dalka. mudane madaxweyne
waxaanu taageero hil iyo hoob ah la garab taaganahay ciidamada guud ee qaranka Itoobiya iyo kuwa dawladda deegaanka Soomaalida ee soo celinaya amniga iyo kala dambeynta dalka waxaanuna ka qayb qaadanaynaa bixinta hilibka iyo xoolaha ay cunayaan waxaan halkayga ku gabagabeynayaa mudane madaxweyne deegaanka aan kugu sheegay iyo dadka aan ku abtirsanay ma laha wax mucaarada dhamaantayo waxaanu ka tirsannahay oo si buuxda u taageersanahay xisbiga hogaamiye talada waddanka ee BB Barwaaqo waxaanuna jeclaan lahayn in maanta sanaaduuqdii doorashadu ina dhex taallo oo annagoo ku ridayna indhahaaga aad ku aragtid annagoo eedhikaadhkii ku ridayna xisbiga Barwaaqo oo dhammaantaya u codanayna madaxweyne waxaanu kaa filaynaa wax ballaaran insha allah bismillaahi kariim kalsooni badanna waa kugu qabnaa culays badanna waa naga dulqaaday ilaahay ha kaa dulqaado intayadaasoo kale isuma aanaan shiri jirin guryahayaga ma aanan seexan jirin nin xidhan iyo nin ka baqaya in la xidhaanu ahaan jiray fursaddan aad bixisay ee siyaasiga ah ee dalku ku degay mahad ballaaran baanu kaaga celinaynaa bay shakhsi iyo caam ahaanba ee hadalka noo hadlay cuqaasha dambe aan odhan doonta kollay degmooyinka iyo gobolka iyo cuqdadaha dadku ay kala qabaan iyo sidii dawladdu gacan uga geysan lahayd iyo hadalka wixii aan ka tegayba cuqaasha dambe odhanaysa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inuu cuqaashii waddanka magacyadeedaba garan waayey waxaan leedahay dhammaan shirweynaha sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan soo dhowaynayaa kalgacal ku soo dhowaynayaa walaalnimo ku soo dhowaynayaa rabitaan ku soo dhowaynayaa madaxweynaha xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar waxaan leeyahay madaxweyne waa ku jecel lahay soo dhawow madaxweynihii barwaaqadow madaxweynihii nabadow madaxweynihii cadaaladow madaxweynihii bulshadu jeclaydow soo dhawow waxaan leeyahay madaxweyne kii talada iyo xukunka in badan noo haya ee aanu ku barwaaqowno ee meel ku gaadhna allaha kaa dhigo hadalkaa waxaa igu kaliifaya caloosha dadka waxa ka guuxayaan ogahay culayska aad deegaanka ka dulqaaday baan ognahay allaha ku barakeeyo intaasi waa soo dhowayntii gaarka ahayd ee madaxweynaha inta kale madaxweyne ku soo dhowow gobol kugu soo dhowayn mayno degmana kugu soo dhowayn mayno qabalaanu kugu soo dhowaynaynaa kaasuun baanu haynaaye qabalaha ku soo dhowow madaxweyne nin baa wuxuu yidhi nin odaya baa la yidhi cali kildhi baa naag dilay markaasuu yidhi waa itaalkii inaanu qabale kugu soo dhowayno madaxweyne waa itaalkayo waxaanu rajaynaynaa soo dhowaynta xigta inaanu gobol kugu soo dhowayno degmana kugu soo dhowayno taasaanu aad ugu rajo weynahay allaha noo aqbalo adna allaha kugu guuleeyo intaa haddaan kaga gudbo soo dhowayntii hadalkii dee caaqilkii hore waxba iima reebinoo waxaan islaa markii hore xoogaa buu kaaga tegayaaye salku soo xaadhay cabatinkuna in lagu noqnoqdo maaha xaqiiqduna intuu sheegay weeye wax badan baan tabaynaa waxyaabaha aanu tabayna inaad naga biisaanu doonaynaa waxaa la yaab leh waddada xitaa nagu soo socotaa markay nagu soo beegan tahaybaa ama meel kale loo duwayaa ama halkaa lagu daynayaa madaxweyne ballaami daayo jay daayo jinni faladuna xitaa nama soo gaadho markaa waxaan leedahay gobolladayada iyo degmooyinkayaga iyo beelaha aanu walaalaanahay anu dadka isugu xigno mas-uuliyiinta joogtaa dhexda u fadhidee madaxweyne istabta naga qaad
intaasina intaa weeye inta kale waxa weeye ilaahay abshirta hayna waafajiye hadalka yaan la badin baa la yidhi waxaan tabaynaa xaquuqdii dhammaan aan ku lahayn dowladda Itoobiya ee federaalka dowlad deegaanka Soomaalida wax allaale waxaan ka haysanaa ma jirto danood waad aragtay 200 kiiloomitir weeye shaxdaynu joognaa wax eelbiyood oo inta ku yaala ma jiro maalin walba waxa loogu waqtiyaa harraad haddii aan ka warramo baahida biyuhu waa sida waxbarashadii ma hayno wax dugsi sare ah oo aan anfaco badan ma hayno caafimaadkii wuu yar yahay heer santarada noo shaqeeyaana noo dhisanina waa qabyo shaqaale male kuwaana ma la shaqaalayn kari waay mudane madaxweyne boodhankii waa kaaga mahad celinaynaa ambalaasyadii waa kaaga mahad celinaynaa wixii noo yimidba waa kaaga mahad celinaynaa laakiin kow ma joogto beeshani kow ma joogto hadhuu baan tolonnay waa culannay waxaan doonaynaa inaad noo buuxiso halkan aynu joogno waa buuhoodle weeye waa hooygii uu ku dhashay halgamaagii weynaa sayid maxamed cabdilla xasan waa hooygii ku dhashay waa hooygii qalcaddii ugu horraysay ee daraawiisheed uu ka dumiyey ingiriisku ee halgankii Soomaaliyeed ee gobonnimo doonka waa hooygii suugaanta Soomaaliyeed ay ka soo bixi jirtay ee caanka ku ahaa sida sayid maxamed cabdilla xasan samatar baxnaan ismaaciil mire aadan carab ninka la yidhaahdo cumar cigaal lama soo koobi karo suugaanyahaniinta Soomaaliyeed ee halkan ku dhalatay intayada halkan joogta waxaan u malaynayaa haddii la yidhaahdo suugaan tiriyo qof aan tirinayn male anigaaba imika waxaan ku dari lahaa markii Soomaalinimada la sheegayey waxaan ku dari lahaa maxay ahayd heestii Soomaali xusuusi qodobkii Soomaalinimada يا من ماذا صوماليات يا ده يهو صومالي نمو ده يهو صومالي تاي حسوسي تاسان كرنا ياي هذا يهو صومالي نمو لين ودغري مرنا بيا الله يسدلمين نينكي ديدا قردران ديار ما ولتهين نينكي ديدا قردران ديار ما ولتهين انت انا بقدر الى هذا ودك انا وسوغان hadalka waxaan ku soo ururinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin caaqilka cabashadii iyo tilmaamihii aanu odhan lahaynba dhameeyey deegaankani sidaa weeye mudane madaxweyne waxaad ogaataa wixii maanta aad noo qabato meel kasta inaan raalli ku nahay ballanqaadkii ahaa inaad deegaankan mari doonto ee kulamadeennii u dambeeyeyna waad rumaysay inaad mar haddaad rumaysay inaad waxaanu doonaynaba noo qabatay baan ugu qaadan nabad ku mar nabadna kaga noqo kalgacalla kaga noqo kalgacalla ugu kaalay deegaanka codsigayagii waad aqbashay allaha ku barakeeyo waxaan u soo noqonayaa mudane madaxweyne waxaad ogaataa geela Soomaalidu geela way taqaan hashu ilma ayan dhalin haddii lagu sidko marna waa saxiix marna waa dhinac dhow gobolada iyo degmooyinka aanu wax ku leenahay aanu degannahay waa ku sidkanahay ayaguna dhinac dhow bay nagu yihiin waxaa fadhiya suldaankii gobolka Doolo guddoomiyihii gobolka Doolo xildhibaankii gobolka Doolo deynta meesha waa nugu ogaado isagaanu shacab u ahayne suldaan maxaad noo soo gudbisay aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin waa idin salaamayaa shirkana waa ixtiraamayaa madaxweynahana waa u ducaynaynaa allaha barakeeyo
waxaasana aan doonayna giddigan baynu doonaynaa allah ila siiyo dowladda federaalka Itoobiya ee uu hogaaminayo Abiy Ahmed waa taageeraynaa midnimada Itoobiya ee ay ilaalinayso waa ku taageeraynaa nabadiidka waa diidanahay waligayaba maanu noqon gobonnimo doon baanu nahay midnimo doon baanu nahay ra'iisul wasaaraha allah barakeeyo waxaa kaloo aan leenahay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo Mustafa maalintan labada isla helay Soomaaliya nasiib badnayn labada Allah inoo daayo ha guuleysteen midnimada ha ilaaliyeen walaalnimada ha ilaaliyeen Itoobiya horumar ha gaadho kinilka shanaad ee Soomaalidu horumar ha gaadho Allah ina barakeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixaan iyo dadweynaha sharafta leh ee madaxweynaheeda si wacan u soo dhaweeyay ee reer Buuhoodle qof walba taytalku leeyahay baan ku salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib madaxweyne waxaan la qabaa soo dhaweynta raggii hore halkan ka hadlay yaan soo dhaweynta la qabaa dadkaas way muuqataa waxna waa la isu sheegaa waxna waa la istusaayay soo dhaweyntii waa lagu tusay markaa soo dhawow oo ku soo dhawow dadkaagii oo ku jecel ku soo dhawow taas soo dhaweynta intaasaan ku dhaafayaa waxaan ka ilaahay baan u mahadnaqaynaa shacabka reer Buuhoodle ee madaxweynahooda soo dhaweeyay ee sidan ugu shiray ayadana waan u mahadnaqayaa oo aad iyo aad baad u mahadsantihiin madaxweyne kolley anigu 2 jeer baan dadkii jigjiga kuugu yimi ee inaad dhulka soo gaadho kaa codsaday 2 jeer baan ka mid ahaa waad rumaysay waa kaaga mahad celinaynaa daahistana dacwo kama qabno oo wuxuu yidhi martiyay warqab ogow waxa weeye waxay ahayd hawl ka badan baa kuu taalay marka ballanqaadkii aad rumaysay iyadana waa kaaga mahadnaqaynaa sida la yidhi raggii hore horta raashinkaanu hambaynaaye hadalka reerkani ma hambeeyo raashinkaa ay hambeeyaane hadalkii horta hamba kamay tegin waanse iska baadhbaadhanayaa raadkoodiina inaan ka yara baydhaan jeclahay mudane madaxweyne waxaa kula socda wafdi ballaadhan oo xukuumaddaada ka mida oo kabinayda ayaa kula socda waxaannu ognahay adiguna aad afkaaga nagaga tidhi anigu digtaytar ma ihi ma xukumo xafiisyada qof walba meeshiisaan u daayaa waanana ognahay oo warqadaannu geysannaayo qof waliba isagaa go'aan ka qaata taasi hadday sidaa ahayd kabinaydka kula socda kabinaydka inaan madaxda eegaan jeclahay waxa weeye kabinaydka kula socda wasiirada kula socda meelay booqanayaanoo wax ka qabteen ma hayaan waa kuwaasoo way joogaa masabidi mayno waxaa la yidhaahdaa doqontu ilay kugu tuugtay iyo afay kugu xamatay leedahay annagu runtaana sheegayna waxaa kaloo la yidhaahdaa madaxweyne waa lala hadlaa laakiin waxun baan lagula hadlin xaqiri mayno cidna ka xaqiri mayno kabinaydka kula socda ee u madax bannaanaa xafiisyadooda ee xafiisyada horumarkaa haysta dalka intaa la eg waxay u qabteenoo maanta soo booqanayaan waxaa jira ceelaan weli biyo laga cabbinoo meesha goob weynaleh ku yaalla oo wasiirka waa ku mahadsan yahay dooxooyinku qoday waxaan u malaynayaa weli biyaa laga gaadhay u malay weli biyihiisana lama cabbin nin kale oo wasiir ah oo soo booqanaya meel wax ka qabtay ma jirto inkastoo maamulka gobolka iyo degmaduba cusub yihiin ayaguna waa ka daaliyo meel ay wax ka qabteen oo ay soo booqanayaan ma jirto mudane madaxweyne markay sidaa yihiin ee aanay waxba noo qaban ee xukunka intaa hayeen ee 2 jeer ay bajad qaybiyeen dee waxaanu leenahay hanagu hallayn baanu leenahay maanta waxaannu ku leenahay horay haddaad saa noo tidhi na aragoo mar haddaanay waxba noo qaban dacwana ma aha haddaanay mar waxba noo qaban adigu dee nagala dhaqaaqi maysid nagala dhaqaaqi maysid waxaan leenahay waxbaad noo sidaa iska kaalay ma aha
dhulka waad mari waxaad noo sidayna meel walba waad ku reebi haddii aalaydmo waxaan kaloo ku darayaa magaalada qaarna qabaliyada dhulka qaarna raas baa degan meella waa la wada degan yahay tan waa la wada degan yahay oo hooyadii carra ciideed weeye war soo saa ma aha taana saa u ogowo waa hooyadii yaxsiin gaaray leedahay waxaa la yidhi meeshii wax laga dhigaba waanu leenahay waxaad ogaataan waxaa la yidhi af xunow lagu waah waanu ognahay in lagu yidhi buuhoodla balaayaa farfadhida iyo carra dhulbahante qofkii saa kugu yidhi inuu annagana cadaawad noo samaynaya adiguna dadkaaga inaad booqato diidayey waad garanaysaa garasho aad ku garataad leedahay annana inaad noo ogaataanu jeclay kasaa ku yidhi waxaan u mahadnaqayaa annagu waxaa la yidhi waa lama qariyo abaalka laguu gudo ciddii wax noo qabata waa sheegnaa beddel xiis nabadda aad buu wax nooga taray hadday ay ciddii waxna tartana saasaan u sheegi lahayn ilaa markuu jarar haystay war sawsaa ma ahaynoo beddel xiis magaciisa ma wada haysaan waka dadkii markhaatigii waka nabadda aad buu wax nooga taray ciddii kale waxna tartana saasaan u sheegi lahayn janankana waxaan leenahay isaga laftiisa layuu booliskiisa berigii horeaanu ka caban jiray imika ka caban mayno waana madaxnimadiisaan qabaa taana intaasaan leeyahay waxaan ku gebagabaynayaa raggii hore aan waxba ii reebine mudana madaxweyne maanta ha nagala tegin magaaladanna waxaad u magacaabayso u magacow magaaladii ganacsiga weeye magaalooyinka kalena magacow wuxuu noo soo bilowa ceel yaroo meel laga taagaye iyo ha nagaga tegini balli yaroo la qodaye wax siyaasa waxaana la yidhi anigu waxaanu buuhodla heesantar intaan nalooga sameeyo secondary buuhodla nalooga sameeyo markii xafiiska waxbarashada xilligii in naloo diyaargareeyey yaa layidhi degmooyinkii baan qaar lahayn hadda waa qudha hoos iyo degmooyin laga dhigtay secondarygii aanu buuhodla u dalonay wasaaradda waxbarashada ay noo oggolaatay maamuladii gobollada naga qaado layidhi degmooyin baan weli aan secondary lahayn marka mar haddaanan degmo lahayn weelaan wax ku shubannaba ma haysano marka haddaadan noo horraysiin oo degmooyin iyo gobollo noo horraysiin dee waxbaba nama siin kartid marka ayagii noo bilow tan nooga bilow kuwa kale noogu xeji haddii abadkeenay ha nagala tegin waxaannu leenahay nagala dhaqaaqi maysid cidna nagu hallayn maysid noona shiri maysid waxaa la yidhaahdaa ood kaa fogi dhaxan kaama celiso haddee yaanan xuquuqdayada kuwaalin jigjigaa idinka fog xuquuqdayada jigjigaa idinka fog mar haddaannu wax walba diyaar la nahay oo nabad diyaar la nahay wuxuu yidhi ninbaa wuxuu yidhi islaantiisii baa intuu soo gargaraacay malaa ooddi ka furi weydayo ma madhniye oodda iga rog buy ma madhniye oodda iga rog war haddee dadkanu ma madhna dad dhaqanle weeye dad dhulballaadhan jooga weeye dad dhaqan weeye dad cashuur bixiye weeye dad hiil iyo hooba gooyo weeye 4 gobol bay xadkooda ilaaliyaan gobolka togdheer gobolka sool garoowe haddii ay baday kaalkacyo intaba xad baan la leenahay 3-4 meelood ay liyu bilis ka degan yihiin keligood waxba ma ilaalin karaan waxaanu diyaar u nahay inaannu saa ilaalinno war xaquuqdii mudane madaxweyne dadkaasi mudnaa waxa laguu soo dhowaynayay bidhaantaada telefishinada laga arkayey oo laga arki jiray ma ahee waxbuu idiin sidaay haydiin keeno bay ahayd waxaannu sugaynaa lacag ma aha waxa yaryarna ma aha wixii weynaayee maqnaa weeye waannu kaa filanaynaa adiguna sidaad iminka ugu soo dhiiratay madaxweyne xishood badan oo ixtiraam badan oo dhaqan le baa tahaye sidaad ugu soo dhiirsatay waannu u garanaynaa ugu soo dhiiratay inaad wax weynu siday insha allah waadna magacaabi doontaa qolada maxay ahaytay qolada heesaysay aad bay u mahadsan yihiin wixii dawladdu qabtay way noo soo gudbayna hoosteeda waa u fahmaynay annaga laftaydu soogaan baanu ku gudbin doonnaa haddii alla idmo asalaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo deegaanka ka tirsan haddana qurba joogaa haddana odayaashii
intii aad soo socoteen shaqaynayay ah codkayguna ma wanaagsana fariimaha aan soo gudbinayaa qaarka ugu muhiimsani waxa weeye taleefannadii noogu faraha badnaa ee uu soo ay nagula soo hadlayeen qurba joogtu talo muxuu madaxweynuhu inoo wadaa cabashooyin fara badan oo halka ka dhacayna waad maqlayseen ummadduna badankeeduba waa iska oral society laakiin waxaa la archive gareeyaa oo la xusuustaa waxa la qoro cuqaashii hadashay garaadadii ee dul maray arrinka shacabka badan ee halka fadhiya go'aamadoodii oo qoran ayaan hayaa waxaanan rabaa haddii rabbi idmo in wakhti yar aan ku dedejiyo akhriskooda shacabkuna markhaati ka noqdo iyagoo qoraal ah inaynu siinay wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynuhu oo deegaanka ka tirsan haddana qurba joogaa haddana odayaashii intii aad soo socoteen shaqaynayay ah codkayguna ma wanaagsana fariimaha aan soo gudbinayaa qaarka ugu muhiimsani waxa weeye taleefannadii noogu faraha badnaa ee uu soo ay nagula soo hadlayeen qurba joogtu talo muxuu madaxweynuhu inoo wadaa cabashooyin fara badan oo halka ka dhacayna waad maqlayseen ummadduna badankeeduba waa iska oral society laakiin waxaa la archive gareeyaa oo la xusuustaa waxa la qoro cuqaashii hadashay garaadadii ee dul maray arrinka shacabka badan ee halka fadhiya go'aamadoodii oo qoran ayaan hayaa waxaanan rabaa haddii rabbi idmo in wakhti yar aan ku dedejiyo akhriskooda shacabkuna markhaati ka noqdo iyagoo qoraal ah inaynu siinay wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynuhu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتي قبل أن قامنا يمدحوينه هنا مصطفى يددوينها بعديات بنو السلامية. هرتا لما قضوا مش كتيرين تانا تحيرو قاونا هديال ليدمو وذا الشقين تلبحين وذا الشقين تنيجي الدولة دينا يو تابشو كل ما عبشو ينكو حوالا قطعوانا يا سوقان تلمر ياهي. waan mari doonaa laakiin laba qodob oo taariikh oo igu horreeyay maanta horta waa maalintii igu horreysay goob madaxweyne fadhiya la soo taago ee la yidhaaho mikrofoonka qabso oo madaxweynaha hortiisa ka gabaya xafladda taariikh qorayaashu iga ilaawin nasiibna waxaa u helay madaxweynahayga mustafa labadayadaba waa nasiibkayaga mid kale reer buu hodlo waan idinku faanayaa ee libtayda ha iga qasirina idinku markaan wax dardareemay qurba joogtan ka mid ah waad ogtihiin markaan wax dardareemay indheeyana idinkiiyo badha saabka gobolku si wacan uma wada shaqaystaan oo soo jiidasho wanaagsan kuma keensataan inuu isagu kormeer idinku yimaado mooyaane aniguse maanta maalintii kullaxahayd markaan ka soo degay wiilwaal international airport waxaan ka qayb galay soo horgelidda iyo abaabulka madaxweynaha taasu markaa waxay macnaheedu waxa weeye idina badha saabkii baa keensan kari weydaanina madaxweyne baan idiin keenay haygagama sugiina taasu waa intaa kaftankaa tix yaroo gaaban waanan dheeraynahayn oo aan madaxweynaha ku hadal qabsanayo oo wada shaqaynteenna iyo tabashaba le ayaan in yar sheegaya mustafow hal baynoo godlan ee yaanay gaagixin gujo kuma irmaanaato
iyo gooha madhacdhaane wariyaan geel gamboor iyo nin xumi dib u galoofayn hadba guumis beri nuugay yuu goyn horaadada in kasta oo ay candhada giijisay oo gadax walwaalayso oo ay garduur iyo ilaa goday ka reemayso gadoon buu ka yahay reer shaxeed goodirkaa dhalay gabna dhicisay uma soo godlaan guun marqoola ah ee hasha geela ugu liidatay iyo gocay ma maalaan gaawaha rag soo wada cushay iyo gocayga xoolaysan garaf weeye dhiilkoodii weli geed ku foorara gabdha uma cidaadaan intay goosay mariyaan ganaax iyo taksiir baa ku dhacay ganaax iyo taksiirtaa ku dhacay waa gu dheer tahay mana garan waxay galabsadeen ee gashi u yaale malahayga malaha waa giraantii nabsiga ee godmeerka ahe malaha waa giraantii nabsiga ee godmeerka ahe garhwadeen hogaansha iyo haddii gabarman loo yeelo godoloola kama muuqateen iyo garraafayne iyo garraafuuye godoloola kama muuqateen iyo garraafuuye gobol iyo degmaba waa u qalmaan ee waa la gaasiray gobol iyo degmaba waa u qalmaan ee waa la gaasiraye gaydhkiiyo albaabkan fadhino waa gidaar xidhane halka maanta gogashaasu taaliyan ku gamacna halka maanta gogashaasu taaliyan ku gamacna inta kalena gumuciga inta kale gamuudhiigla iyo gumuci baa yaal adigaba guraasiyo iljeex way gabanayaan allaa kuu gargaar nina kuma gargaareen haddaan guulla kaa qabane jiib iyo ismiidh baa ka tegay gocondho waaweyne ani giddigee cadowgeennii hore waa guruub midahe anigoo gobtahanyoonaya yaad gabay tidhaahdeena waxba yuu garmaamada sanguh gaarrise igeyne haddaan soo gunaanado halkay gawdu iga taallo dadkanu waa geyiga uun ku nool ood gacal wadaagtaane galti dabadda laga keenay iyo maaha garan waaye gubniyaa ka soo bixi haddaa gaala diriirtaane gubniyaa ka soo bixi haddaa gaala diriirtaane bal mar uun abaalkuu galo iyo maruun wixii uu galiyo guda abaalkoodii buuri intaasaan idinku soo goobayaa wax dheer musiiba raxiim bismillaahi raxmaani raxiim allayla waa maalin wanaagsan shirka sharafta leh uu ku jiro mudane mustafe maxamed cumar wafdiduu hogaaminayo madax meel laga sarreeyo la salaaxaa ma jira waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxda loo aayo iyo maamul baa fadhiya mudane lagu soo hirtiyo muunad baa fadhiya islaamada la harhsadiyo arar baa fadhiya garaadada lagu farxiyo guurti baa fadhida geesi maal badanoo ku dulgoohayaa fadhiya gurgurcood ka cahaya gaasas baa fadhiya gaari loo aayo iyo waxaa fadhiya garsoor culimo awdiinta iyo caaqilaha fadhiya madashan aan joogno muslimkoo dhan baa ogsoon bisinkaan idiin qabta iyo baqra iyo watiin buruudkiin iyo bidhaantiinna waan jeclahay boqorradii ow bishaaraan idiin sida mudane madaxweyne marna waynu kaftamaynaa marna waa kala cabanaynaa marna waynu isa salaamaynaa horta soo dhawow waa dalkaagii waa dadkaagii waa diintaadii allihii ku soo nabadgeliyey baa mahad iska leh allihii shalay lahaa baa maantana leh allihii ku soo nabadgeliyey baa kusii nabadgelin doona aad baanu kuugu faraxnay alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wakti walba in la shukrinagaa fiican waxa weeye mudane madaxweyne waxaa tahay macquula salayntii rabbi uumay nebi moxamed ba u aftala intii rabbi uumay geel ba u adkaysan badan intii rabbi uumay faras ba u abraaro dheen intii rabbi uumay mustafa u akhlaaq wacna mudane madaxweyne waxaan ku hayaa ammaan macbuudka ku uumay mahad baan u celinayaa madaxda kula socota mahad baan u celinayaa oo calankaa miigan
mahad baan u celinayaa nabadanaad miirtay mahad baan u celinayaa nayuuga midaysan mahad baan u celinayaa shacabka soo maaxday mahad baan u celinayaa malkadaad ku dhalatay mahad baan u celinayaa muuqa jarareedna mahad baan u celinayaa qoraxayoo miigan mahad baan u celinayaa marwadaad nuugtay mahad baan u celinayaa macallinkaagiina mahad baan u celinayaa maamulkaagoo dhan mahad baan u celinayaa mas-uuliyaddaada mahad baan u celinayaa macbuudka allahan barya marin hagaagsan qaad mudane madaxweyne waynu kaftamaynaa anigu waxaan ku hadlayaa horta afka hooyooyinka iyo carruurta iyo hooyadu waa isku hoy ragguna waa isku hoy raggu waa siyaasada badan yahay laakiin anagu guri baradaanu ku egna waan kaftamaynaa mudane madaxweyne inaan muuqanaan rabnaa maxaa noo diiday biyaha durduurateen maxaa noo diiday korontada dushaada sudan maxaa noo diiday jaamacad la daadahayn maxaa noo diiday laamiyada diritada ah maxaa noo diiday mashaariicda dalaga badan maxaa noo diiday caafimaad dadkaba xukuma maxaa noo diiday biyaha durduurateen deegaanka dhulbahante maxaa daaha loogu xidhay dalka miyaanan ahayn diinta sharafta badan dadka miyaanan la dhalan diir walaalsa jirin diinta sharafteeda iyo daacadnimada eeg dantaad noo hayso weliga hanaga dayicin agoontiiyo ubadka iyo kii itaalka daran midkii soo ururiya ee noo arrimiyo noqo ilaahay amarkiisa iyo aayadaha ku dhaqan idilba soomaali weyn kay adeecda noqo islaamka oo dhammina ku wada ikraamo noqo eheludiina wallow ayatiin ku si mudane madaxweyne waxaanu nahay shacabkaagii mudane madaxweyne booqashada waad nagala raagtay raggu waa kuu turaya mudane madaxweyne waxay ahayd 6 biloodee hore markaad isku dubaritay kursiga iyo intiisa camalaqsanayd inaad dadka noogu soo horrayso mudane madaxweyne annagu qallaanu rabnay inaanu guro dawladdii hore shar iyo khayr waxay lahaydba deegaanka agal laga yidhahday ku ekayd waxbaba maanu arag annagu mudane madaxweyne waxay ahayd inaad deg deg noogu timaado oo deg deg noo soo booqato dumarku marka nin xuni fure ee nin wacani guursada waxay dhahdaan nabsi bax baan helay nabsi bax baanu doonayna mudane madaxweyne mudane madaxweyne waanu kugu faraxnay allah kugu farxo waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne waxaad ogaataa in intaasoo caqabadoodoo lagaala hadlay aanu ka dayacannahay kurbada allaa fayda laakiin aad noo tacab gashaanu rabnaa wuxuu yidhi adeerkay salabaan xaaji cali nagalama dhaqaaqdid mudane madaxweyne horta anuu kaama hadhi maayo ilaa jigjigaan ku raacaya mudane madaxweyne waxaanu rabnaa waxqabad deg dega emergency qofka marka naftiisu seriouska tahay emergency baa la yidhaha annagu emergency baanu rabnaa emergency waxaanu rabnaa inaad dadka kaleba buuggooda laabto markii hore iyagu hadduu xukuumaddii hore naag baa lagu yihi ninkaagi baa kula guursaday waxay tidhi hadduu jiidh ahaana masayrkii baa ka yeedhsiiyey anigaaba ku miigtay hadduu baruur ahaana anaa ku laqayooday markaa xukuumaddaa shishe markii hore ay soo laqayoodeen oo soo miigteen annagaa barooya iminka annagaa barooya annaga wax noo qabo allaha ku sharfo waan kuu ducaynayaa casiiskaan kuu bariya caafimaad ku war casiiskaan kuu bariya cidhib dambeed lahow casiiskaan kuu bariyaa caynaanka hay casiiskaan kuu bariyaa curadadaada diro inaad cilmudato bal calaaltima ka eg cirjirhkiiyo wadaan calanka kuu sidnaa mudane madaxweyne haddii lagu yidhi dhulbahanta dadkuu cunaa waa orjinaal weeye walaalahaya yaan waxaa lagugu sheekayn waxay markay wax maamulo waayeen bay iyagu camal iska dhigteen oo islaayeen iyagana adaa heshiisiiyey marka waxaanu rabnaa nabaddi wayna soo gaadhay neecaw qabow baana martay allaha ku sharfo jannada allaha kugu casimo laakiin waxaanu rabnaa noloshii nabaddii waa noloshii baanu rabnaa waxaanu ka haynaa dawladda calankaa iyo ciidanka labadaasaa naga soo gaadhay waxaa ku xiga baadhanka marqaan habeenaan ku soo dar mudane madaxweyne biyaha u horraysi jidaadka ku xeji korontada ku xeji oo ku xeji gobollada degmooyinka
wuxuu yidhi adeerkay salabaan xaaji cali weelaanu wax ku shubannaba ma haysano waa run mudane madaxweyne haddii naloo dhiso guri martidu leedahay bacaan maanu dhisaneen sidaasaa tusaale kuugu filan waxa weeye wakhtigaa gaaban mudane madaxweyne saa laguma kala dhargi karo waa kulankii u horreeyey insha allah kulamo dambana allah inugu simo waxaan ku leeyahay hortaada hiba allaha dhigo hortaada adig iyo xukuumaddaadaba hortaada hiba allaha dhigo mudane madaxweyne midh baan ku faraya waxaad ogaataa jir qoyani ma kala go'o saad u turjumata weeye jir qoyani ma kala go'o assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبك شرفت بدن سنتر كان شحظة وبوهود له دقمة الدرنوت دمانتين وسلامنتين وسلامنا آد بغضبها نقينا سودوينتي ديرانيد تكون موجسين سيدي آد حتى بالشيكتين وضياش الشيكين يصير شعبكم بوصوا قبقرين مناسبة وتكون سنتين قراد عبد الساق قراد صوفي قراد عبد السلام برالي سلطان سعيد صلاح الدين تكلا يوقاشي أنا مقعود هالك هالشيء لما أنتين سيكال يا الله يعني كقدرنا يسوي دوينتي أدنى وتقوم هالسنتين أرمها أتكا هذا الشيء يدينكو يو كوا شعب كوا أي تبين إن هالك كهادلين ولو سفر كان هذا عن نمد ونقارن يمد علم بدن نو كردينيا oo deegaankii iyo shacabkii iyo baahiyihiiba aan ku arkayno ma aha kuwa aan mooganayn oo imaatin la'aan darteed aan ku mooganayn maaha idinkuna waad noo sheegteen kulamo hore oo gallay war dheer baan ku gallay jijigaan ku gallay xukuumadahaana nidaam dawli oo dhisan oo intuu dooniba ha ahaado tabartiisu yahay laakiin xogta taalla iyo baahiyaha jira lagu ogaanayo ayaa dhisan marka dhankan waxaa idiin sheegayaa inaan wax badan oo aad sheegteen ognahay wax badan oo kale oona kulley aragtida ka fiican maqalka oo imaatinkan uu wax badan noo kordhinaya arrinta la xidhiidha safarkanaga ee soo dahitaanka waa run deegaanadii aan soo marnay ilaa daraad bawaanka cuurdaaranay arrintaas kolley deegaanku wuu ballaaran yahay 93 degmo 6 maamul magaalo 11 gobol 2 sano gudahood iyadoo shaqooyinkii qaran iyo kuwii deegaanka la qabanayo in la wada tago oo la maro waqti bay qaadanaysaa meelun baa lagu horeyn lahaa meelun baa u dambeyn lahayd shacabka dhammaan deegaankuna uu noo siman yahay saa daraaddeed haddii aan soo dahayn naga raalli ahaada inaydan muhiim ahayn laakiin ma ahayn inaydan muhiim ahayn oo hamiyadda aad ugu dambaysaan ma ahayn jadwalka iyo safarka iyo xaaladihii jiray unbaa keenay meelaha qaarkood waxaan u tagnay shaqooyin markaa taagnaa meelaha qaarkoodna booqasho sidoo kale oo qastiyaan u tagnay aad iyo aad markaa idinka raaligelinaya haddii aad dareenteen in hadda ka hor in la yimaado ahayd baahiyihii aad ka hadasheen intaana gelin ka hor waan ka garaabaynaa in astaamaha dowladda iyo adeegyada iyo kulli ay aaggan ku yar yihiin ilaa shalay ilaa daraad meelihii aan soo marnay guud ahaan aaggan xuduudda ah wax fara badan oo adeegya oo badan oo ka jira ma jiraan xagga waddooyinka xagga biyaha xagga caafimaadka xagga waxbarashada dhammaan waxaa ka jira dhibaatooyin taa macnaheedu ma aha meelaha kale ee aaggan aan soo marnay shalay aan ahayn adeegyadaasi way ku dhaamaan maaha dhab ahaan marka laga hadlo maadaama aan soo wada marnay ilaa iyo mooyaale oo daawa ah ilaa iyo city ilaa iyo feerfeer dhulka ku jiro dhan waan soo marnay walow baahiyaha aad sheegateen meelaha qaarkood ku kala duwan yihiin haddana shacabka deegaanka soomaaliyeed xagga horumarka aada isuma dhaamo hooyooyinku weli dhamada way ku dhintaan jid la-aan bay u dhintaan ambulans la-aan bay u dhintaan ciyaar ciidda ka badan meeloo jigjiga aan ka fogeyn 100 kilomitir aan gaarin waxbarasho aan tegin baa jira biyuhu aad iyo aad dhibaatooyin u yihiin santarada biyaha soo codsada kuwa soo fog keliya ma kuwa jigjiga agteeda u badan marka baahida shacabka deegaanka Soomaalidu guud ahaan runtii wax isku dhoweeyaan meel walbood martaan haddii odayaasha iyo uqaasha deegaankan kolley safar baan rabnaa inaan diyaarino bal dadyowga waqooyiga deegaanka degan gobolada ah inaan koonfurta geyno kuwa koonfurtana inaan keenno xaggan keenno waxay arki lahaayeen waxyaalo fara badan oo ay la yaabaan oo ay markii hore u haystay si kale yihiin taasi ma aha mid aan kaga hortagayno baahiyihiin inaan ka jawaabno ma aha mid aan ku duudsiyeyno
xaqa aad u leedihiin inaad dowladda ka weynka hadda aad ka heshaan dhinac walba laakiin waa xaqiiqo jirta oo u baahan in la ogaado oo in la ogaado ay idinka caawinayso inaad idinkuna cabirkiina la xidhiidhka dowladda la yeelanaysaan inaad maareysaan sidaa daraaddeed expectationku wuu sarreeya iyo filitaanku annagana ilaahay naga dhigo kuwii ka jawaaba intii tabartanada laakiin baahiyaha deegaanka soomaalida ka jira aad bay u ballaaran yihiin meel walba oo la taga magaalada Jigjiga ee caasimadda waxay u baahan tahay ugu yaraan in ka badan 20,000 oo metr cube oo biyo ah inay soo galaan maalin walba oo laga cabo waxaa soo gala wax ka yar 7,000 xaafadaha qaarkood way kalkaystaan 2 maalmood 3 maalmood biyo ma haystaan waxaana ugu wacan beentii laga sheegay horumarka oo 10kii sano dhaqaalaha dalku uu fiicnaa ee uu wanaagsanaa ee miisaaniyad badan deegaanku helayay loo adeegsanayay in lagu raali geliyo kooxdii TPLF oo lacagta badankeedu dib u galeysay iyo in shacabka lagu laayo iyo in inta markaa kursiga haysa iyada ay jirto saddex qayb baa dhaqaalihii loo qaybinay telefishinada hadda dawataana wixii ka socday waagi hore hadda waad ogtiin horumarkii ka socday TV-ga iyo wixii la sheegay la socotaan waxay keentay heer hadda anagu aanan ka sheegan karin horumar xitaa marka wax qabanno aanan sheegi karin maadaama shacabku ay ka aamin baxeen wixii ay dowladdu sheegaysay marka inaas waa hordhahaan laakiin baahiyaha meesha ka jira waan daraasaynayna insha Allah hadii la yiraahdo haddana kulay kulankan hadda halkan shacabka mooye gaar waan soo arki doonaa mas'uuliyiinta iyo odayaashaba xogtan ayo waxa ugu siimeysa waa biyaha hadda waxa u sii daran waa biyaha iyo health center xagga caafimaadka marka in health centerka hawshiisana dib loo eego biyahana la keeno waan ka shaqeyn doonaa baahiyaha aad beel ahaan u sheegateen deegaan aan ahayn in wax laga qabto waa la isku dayay dhanka matalaada dhammaan degmooyinka beeshu ay hoos tagto iyo gobolka Doolo iyo heer deegaan matalaad waa la bilaabay beesha waa la bilaabay intii doon hal ekaato cid Soomaaliyeed oo maanta deegaanka joogto oo booqanay oon lahayn saamiga naga maqan ma jirto taayna ogaataa ma muhiim laakiin waa la bilaabay mas'uuliyiin baa laga arrinayay sax maaha halkan mas'uuliyiinta nala fadhiya qaarkood aad aragtaan wajiga ka muuqdaan laakiin naguma fil iyo wax la sii badiyo waa la oran karaa arrimaha degmooyinka aad ka tirsantihiin booq iyo galxamur iyo danood matalaad dhalinyaro oo fiican oo mas'uuliyiin ku jirta bilowgii hore caqabadaha bilowday laakiin waa la saxay laakiin waxyaalaha aad ka hadasheen oo la xidhiidha dhinaca adeega oo xaggan soke ee bariga danood oo kale aad ka cabateen oo jira jid hadday noqoto wardheer magaalada caasimadda iyo wardheer ma laha jid laftigeedu Jigjiga wax ku xidhaa ma jiro jidkan halka aan soo raacnay saaka ee ku nimid halkan unbaa ku la mid lagu tagaa ilaa Jigjiga marka waxyaalaha qaarkood waa wax caama macna wax beelo idinku dhow iyo maamul gobol iyo xukuumad iyo ay idinka hortaagan yihiin runtii ma waa wax guud oo horumar la'aantii deegaanku ay keentay weeyaan meelaha qaarkood in saa loo fahmaa muhiim waayo saa hadaan loo fahmin waxa laga yaabaa in la isoo arko in kaligiin ay hawshan ay ku tahay ma beelahan soo marnay iyo kuwa hadda aan sii mari doono ilaa intaan laabanayn in qaloocan ka noqon doono danood sii mari doono ee aan dhexdii sii mari doono sariiq iyo agaas iyo adiyaa layda intaas oo dhan baahiyuhu aad bay u badan yihiin laakiin waxaan ka garaabaynaa in meelahan ay yihiin meelaha ugu ba'an ee dawladnimadii astaamaheedii ayna soo gaarin waan ka garaabaynaa waan garanaynaa oo ognahay dhanka waxbarashada dugsiga laga dhisay mirqaan looma dhisin in magaalada mirqaan kaliya uu adeego dhalinyarada aagan joogto oo dhan maadaama boodhinadu ay yihiin kuwa heer gobol loo samaynayo kii gobolka Doolo la siiyay caasimadii lama geyn mirqaan baa la keenay waxay ahayd arrin la xidhiidha ka garowsho in halka hadii la geeyo dadka reer guraaga ee waxbarashadu aan helin fursad gaar ahaan dadka danyarta ee magaalo ilmahooda aan geyn kareynin meel wax ku baraan in la helayo marka macadkaasi markuu dhamaado wuxuu noqon doonaa mid aad wax uga bedela baahiyaha jira waxaan ogahay in dugsi sare oo kalena laga sameeyey mirqaan oo intii isbedelka kadib laga sameeyey meelihii aan soo marnay ceelal meelo laga qodayaa jira baahida 30 sanadood ma 100 sanadood soo jirtay sanad iyo laba waxba lagama qaban karo laakiin in la bilaabo waa muhiim in wax laga qabto kulankeena maanta halkan aan isugu nimid yaa kooka inaan diyaar u nahay wax laga qabto oo shacabka dhibaatadiisa la soo ogaado oo lagu xisaabtamo oo wax laga qabto dhanka baahiyaha markaa saas weeye waxyaalaha u baahan in wax laga qabto solarka lightka qararo iyo heegaale iyo shaxdu intuba way ku jiraan qorshaha hadda u baahan in solar loo sameeyo magaalooyinka lagu daray koow ka yihiin muddo dhow insha Allah waxaan isbedel baa iman doonaa isleenahay networkiga oo kale waxyaalaha degdeg wax laga qaban karo weeye
isgaadhsiinta maadaama ay muhiim tahay waxyaalahaas ugu muhiimsan biyaha iyo caafimaadka ugu sii daran dhanka waxbarashada dugsi wuu jiraa laakiin in la tayeeyo taa shalay hadalkii aan baan ku celinayaa dhalinyarada aagan waa inay u diyaargaroobaan inay waxbarashooyinka dalka Itoobiya ka qayb galaan inay dugsiyada galaan kuwa farsamada gacanta kuwa kale affirmative action hadday u baahdaan waa loo samayn laakiin waa inay iyagu diyaar ahaadaan waxaan filayaa waa dhaweyd ilaa arday fara badan iyo la soo dalbay macallimiin baa jirta lama helo inta badan agal lagama helo ciidan baa hadda la qorayaa in dawladda lagu daro la rabaa oo dawladnimadii qaybka lama helo inta badan marka waxyaalaha qaarkiina waa waxyaalaha xukuumadda ku xidhan waxna wax odayaasha iyo hogaaminta dhaqanka iyo shacabka meeshan jooga saaran inay iyaguna la yimaadaan go'aan inay dawladnimadii ka qayb galaan oo kaalintoodii ay ka ciyaaraan sidii idinkuba aad sheegteen isbedel ballaaran wuxuu ka jiraa dhanka xorriyadda dhaqdhaqaaqa xorriyadda hadalka nabadgelyada iyo qaabka hay-adaha nabadgelyada iyo ciidamada ay ula dhaqmayaan shacabka isbedel ballaaran baa ka jira deegaan ahaan aagan kuwaasuu ka faa'iiday isaguna waxaa hadda aan isla garanaynaa kulligeen in maanta baahiyada taagan aan ka wada hadlayna ayna ahayn dad la xansuuqay dad la xidhay dad la muxuu ahay cagajugleen lagu sameeyey kuwa loo diiday inay soo socdaan oo dhulkooda meeshii doon ka tagaan waxaan ka hadlaynaa waa noloshina waa bilow weeye haddan bay bilow inoo tahay samir ayay u baahan tahay waa in la samraa laakiin waxaan ka qabanaynaa arrinta aad ka hadasheen ee dhanka la xidhiidha degmooyinka iyo maamulada oo aad tidhaahdeen waa arrin aan dareensannahay inay udubdhaxaad u tahay baahida ballaaran ee aagan annaguna waa la qirsannahay waan garanaynaa waan ka garaabaynaa waa arrin saxa waa arrin aan qirsannahay in aan bidixayn ay ka jirtay arrinta dhankaas in waxa ugu weynee dawladnimada looga qayb qaadan karaana ay tahay wixii dadka kale ay heleen inay aagan in ay helaan taa waan qiraynaa qaabkii lagu fulin lahaa hadda ka horna waan ka wada hadalay waa idiin sheegnay qaabkii lagu fulin lahaa iyo nidaamkii lagu fulin lahaa oo aan dhaawacayn dawladnimada oo aan keenaynin meelo kale iyo foodooyin kale inaan furon baan ka fikiraynaa laakiin waan ka garowsannahay shacabka intaa leeg iyo bahadda intaa leeg inay u baahan yihiin maamul qaabkii iyagu ay usoo dhigeena in maaragtay u baahan yihin waan ka garaabaynaa fulintiisa laakiin waxay u baahan tahay in qaab dawli oo nidaam loo sameeyo hadda ka hor waxaa jiray in qaabkii maamulku deegaanka ugu dambeyn 10 sano u dambeysay uu noqday waxyaalaha ayna ahayn madaxweynuhu inuu awood keligii u yeesho in loo yeesho markaasaa la leeyahay in aanu awood iska qaadaya ma waxaan u danaynayaa nidaamka iyo wada socodka deegaanka ayaan u danaynaya waxaa ka mid a madaxweynuhu meeshuu maraba sidii isaga la quman saa intuu indhaha u mariyo inuu yidhi halkaas waa degmo halkaa maaha waxay keentee waxaan maanta aad ka cabanaysaan waxaa keenay inaan kriteria jirin inaan wadda jirin inaan dariiq jirin wax loo maraa waxa iyadoo arrintaa qaabilsan inuuna jirin waxay keentay waxaan maanta aad ka cabanaysaa haddii ilaanii la waafajiyo waxaa laga yaabaa qaybo ka mid a bulshada inaan aniguna wax siiyaa laga yaaba kuwo kalena aan ku xadgudbo markaan kuwa siinayo maadaama wax loo raacaya ayna jirin sidaa daraaddeed waa in la sameeyo nidaam kriteria leh oo dadka lagu xaqsoorayo oo maamulada qaabka loo dhisaya haddii ay jirto haddii arrintaasi arrin nagu raagaysa tahay oo sidii idinku aad ka hadasheen dhiig joojin meelo u baahan ay jiraan inaan hoos u eegno isu tagno oo wada hadal oo hogaamin ahaan iyadana diyaar baan u nahay marka saasaan taa ka odhan lahaa arrimaha kale ee dhanka dawladnimada la xidhiidha sidii hadda ka hor jirtay in waxaa u baahannahay xafiisyadu aad ka hadasheen iyagu ay awoodda qaataan awoodda ay yeeshaan soo baadhaan wixii ay qabanayaan soo qabtaan taasi waa qaabka dawladnimadu ku shaqayso weeye oo cid walba meesha loo dhiibo mas-uuliyaddeeda ay qaadato goldolooyin way ka jiri karaan macnaheedu ma aha xafiiska madaxweynuhu inuuna ogeyn haba yaraatee xafiiska biyuhu wuxuu ka shaqaynayo ma aha wax kaloo shaqaa ma lihin xafiiska madaxweynuhu xidhiidhintii guud iyo dabagalkii guud buu leeyahay marka la leeyahay xafiis baa awood la siiyey dadka raba inay si kale u sarrifaan waxay yidhahdeen xafiisyadii waxay samaynayaan ma ogta madaxweynuhu ma oga ama madaxtooyadu ma oga ma aha waa la ogyahay shirar baa la galaa qiimeyn baa la sameeyaa warbixin baa la kala qaataa dad arrintaa qaabilsan oo dabagalaa jira oo daba socda goldolooyin way ka iman karaan meelaha qaarkood waa la isku dayaa in la soxo waa laga daba tagaa laakiin guud ahaan waxaan aaminsanahay qaabka hadda loo shaqeeyo iyadoo goldolooyin ay jiraan inuu ka fiican yahay qaabkii hore sababtaa waxaan soo marray dhulkii aan soo marray keliya aan ka aragnaa labadii sane hadda isbeddelka ahaa waxyaalaha ka bilowday baan aragnaa oo kuwii hadda aan ka sheekeynaya kuwaasba waxay ka yimaadeen xafiisyo iyagu keenayay xogta oo lahaa halkaasaa dugsi sare u baahan halkaasaa caafimaad u baahan halkaasaa ambulance u baahan labay ka imanayeen marka qaabkaa shaqadaas in lasii xoojiyo
maamulada degmooyinka iyo gobollada ciladaha ka jira ee la xidhiidha in la isku khaldayo qabiilkii iyo maamulkii waa in la soxo waa caqabadda u horreysa in hortaagan maamul ahaan weeyaan markii la dhisay qaabkii loo dhisay maadaama ahayd dadku inay deegaanadu iyagu ka taliyaan oo wax badan ay soo kordhisay oo shaqaalihii iyo nidaamkii kulli iyagu ay yeesheen oo ayna dareemaynin cid kale la dul keenay haddana qaabka loo adeegayo mas-uuliyiintu isku wada mid maaha qaab qabiil qaar u shaqayn baa jiri kara qaab maaragtay aan saxayn qaar u shaqaynayaa jiri kara taana in dowladnimo lagu soxo qiimeynteedii la sameeyo dabagelkeedii la sameeyo isla xisaabtan dhabi inay timaado waa la isku dayey goldololooyinka jirana in la saxo diyaar baan yaan u nahay ugu dambayn arrimihii aad ka hadasheen dhammaantood inaan ka jawaabno diyaar baan u nahay safarkan insha allah ilaahay naga dhigo mid natiijo ay ka soo baxdo oo wixii halkan lagaga wada hadlay hadday baahiyo tahay hadday maamul tahay jawaab saxa laga helo qaabkii iyo nidaamkii arrintaas lagu geli lahaana insha allah haddii ilaa muddo aan fogeyn waan la soo communicate garayn doonaa si aad noo soo dhaweysan waad ku mahadsan tihiin safar dheer baan geli doonaa meelo badan baa na sugaya ammaanka hala ilaaliyo annagu dadka aaminsan meeshan iyo beeshan iyo waxbaa ka dhex jira ma aha lama qarin karo waa xaqiiqo weeye in borderka soomaaliya marka xaggaa loo dhaafaba meelo fara badan ay dhibaato ka jirto halkan keliya maaha ilaa iyo doolacaddo ilaa iyo togwa jaale inta udhaxaysa mar haddii dal la yahay borderka in il gaara loo yeesho dhaqdhaqaaqeed ka jira la ogaado macnaheedu maaha in beel gaara lagu xumaynayo marka way jiraan waxyaala jira lama dafiri karo waxaas laakiin ma aha wax keeni kara in aan shacabka naga u nimaadno iyo inaan la kulanno wax noo diidaya haddii khatar jirto shacabka inaan la qaadano khatartaas ayaan diyaar u nahay saasaana ku nimid intaas ayaan isleeyahay way nagu filan tahay maanta waxyaalihii baahiyahana waan ka jawaabaynaa waxaan u nimid ma aha inuu keliya isbarasho iyo aan deegaanka aragno waxay ahayd inaan ka jawaabno baahiyihiina sidii dawliya oo nidaamle uga jawaabi doonaa waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ibraahim cabdiqaadir jabaan warbaahinta kalshaale buu hoodle